Ciidamada ammaanka ee degmada Galdogob ayaa halkaas waxa ay ka wadaan dhaqdhaqaaq xooggan kaasi oo lagu dardargelinayo xaqiijinta dhinaca amniga. 29-ka Abriil waxaa maanta ay soo qabteen ciidamadaasi gawaari kuwaasi oo ay baaritaano xooggan ku wadeen. Waxaana ka warbixiyay taliyaha ciidamada ee degmadaasi Galdogob. Waxaa wareystay wariye madax bannaan oo deegaanadaasi ka howlgalay wariye Bayle Screen Out. tali gaarigan xagee ka yimid oo saddex gaari bay ahaayeen waxay ka yimaadeen Hargeysa waxay soo mareen Goorways oo Itoobiya sidaas ay tahay wax xoojinayna amniga xoojinayna waan baarnay hadda gaarigan waa dejinay labadii kalena waa noo soo socotay oo hadda askar baa la soo socota waa baari doonaa waa gaariga horeeyay gaarigan miya labada gaari oo kale gaarigan ma ka weeyeen mise ka yariyeen maya waa labada gaariba gaarigan bileedin waa noociis waa noo hooyin markaayana waa baari doonaa askar baa la soo socota waa ka hortagay hadda ma dhanka Itoobiya iyo idinkii baa isku xirmay hadda kilinka Soomaalida iyo idinkii yaabna ahaan waa isku xiranay ilaa waxa degana waa xuduud waa sax marka Itoobiya wixii soo mara anagu sidaas ay tahay waa si baarayna waa sax thank you very much kaas waxa taliyaha booliska degmada Galdogob taliya Salaad thank you very much